بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ريال وبرنامجكني لما قاعد بحي هول مالميدكني محمد صلى الله عليه وسلم. وفدقي كويتبانات أما حلقة كويتبانات tii hore waxaan uga soo hadalnay nabiga calayhi salaatu wasalaam booqashooyinka guryaha markuu tegayo irida meeshuu ka istaagayo guryaha markuu galo sida uu dadka u qaabilayo ilmaha yar sida uu marxabaynayo qoysasku hadday isku dhacaan ama ay kala maqan yihiin qaabka uu arrimahooda u cilaajinayo qaybo ka mid ah ayaan soo tilmaamnay. weli waxaan guda uga jirnaa booqashooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmihiisa guryaha uu booqan jiray iyo mawaaqiftaasi qaybo ka mid ah inaan isdul taagno. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yeeratay mulayka waxay ahayd ayeydii nebi moxamed ayeydii anas ibni maalik ayay ayeeye u ahayd. way u yeertay raashin ay samaysay ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku martiqaaday. nebiga waa yimid raashinkii buuna wax ka cunay, kadibna wuxuu ku yidhi istaaga aan faliusalliya lakum aan idiin tukado gurigiinna meel aan uga tukado si aan idinkugu duceeyo. anas wuxuu yidhi waan istaagay darin ama gogol noo taalay oo madoobaatay adeegsigii iyo wakhtigii dheereed ay taallay oo la isticmaalaya daraaddeed la madoobaatay baan soo jiiday. biyo ayaan ku firfirdhinnay, kadibna nebiga waa iska dul istaagay sal ly slam, gogoshii buu ku istaagay. aniga iyo wiil yaroo agoonana gadaashiisaan saf gallay. haweenaydii cajuusada ahayd oo ayeeye ahaydna gadaal dambe ayay ku xiratay. nebiga calayhi salaatu wasalaam 2 ragcadood ayuu ina tujiyey, kadibna waa inaga soo tegay. wahaakada sala allahu calayhi wasalam. xataa guri haddii loogu yeero inuu isna wanaag uga tago oo maxaa la yidhaahdaa duca kamaysan dalban ogow sida hadda annaga dhaqanku yahay noo duceey sheekhu ama maxaa la quraan noo akhri maya laa ducana lagama dalban walaa quraan akhrisna lagama dalban, caadi baa loo casuumo loo martiqaaday. haddana markii martiqaadka uu dhameeyey isaga ayaa khayr iyo baraka uga tegayo ducadu markaa waa automatic way imaanaysaa. nebigu guryaha u tago dhanna waan u tegi doonaa saas uga ducayn jira sal ly slam. anas wuxuu leeyahay nin daris la ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo farisi ahaa baa wuxuu ahaa mid maraq macaan maraq fiican oo qurux badan buu karin jiray oo maraqiisuna wuxuu maraq aad u udgoon oo caraftiisu cajab leh buu ahaa. nebigana wuu jeclaa sal ly slam maraqiisaas. maalin maalmaha ka mida wuxuu u sameeyey maraq marka wuxuu ku yidhi maraq baan kuu sameeyey nebi allow ina bixi. wuxuu ku yidhi caaishana macayga may noqonaysaa miyay isoo raacaysaa? markaasuu yidhi maya adigun baan kuugu talagalay. markaasuu yidhi anigana ma socdo. haddana mar labaad wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah maraq baan kuugu talagalay. markaasuu yidhi wahaadihi tanna may raacaysaa? markaasuu yidhi maya waa un adiga. markaasuu yidhi maya ma socdo. mar saddexaad buu haddana sidoo kale ku yidhi. markaasuu yidhi tani may raacaysaa? haa buu yidhi. markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha way soo baxeen iyagoo weliba yatadaafacaan isbursanaya oo isriixriixaya oo doonaya inay kala hormaraan ilaa ay gurigiisii ay yimaadeen. halkaa darsi cajiiba ku jiro qaabka uu guryaha uu u tegi jiray iyo weliba uu u ajiibi jiray. ama muslim ha ahaada ama farisi buu ahaa ama yuusan ahaanin, ama maxaa la yidhaahdaa weliba qoyskiisa xataa sida uu u farax gelin jiray ama qalbigooda uu ugu beeri jiray. maalin maalmaha ka mid a nin khayaad ah oo wax toltola ayaa nebiga raashin u sameeyey. anas wuxuu leeyahay nebiga ayaan raacay sal ly slam. raashinkii baa loo soo dhoweeyey, wuxuuna ahaa khubsi shaciir ka samaysan iyo maraq, yacni kibis ama maxaa la yidhaha rooti ama muufo ama canjeero waxaa doonta dheh oo shaciir iyo qamadi ama heed laga sameeyey iyo maraq uu ku jiro dubbaa. dubbaagu waa qarciguna waxaa loo yaqaanaa qiyaastii waa bocorka baan qiyaasaya inuu yahay. haddii ay uusan bocorku ahaynna waa lii soo gudbin karaa. soomaaliya waxa uu ku yahay dubbaagu ama qarcuga alqarc ama addubbaa in uu yahay bocorka ayuu aad u jeclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. marka maraq bocor uu ku jiro ayuu ahaa. isla marka iyo qadiidkuna waa hilibka loo yaqaano oodkaca ee aan aadka u isticmaalno. nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii shaqadiisu iska aaday wuu cuncunay, wuxuuna raacraacay meelihii bocorka uu yaalay buu aad gacantiisa u raacraacayay. anas wuxuu leeyahay markaan arko bocor kasto nebiga xaggiisaan kusoo tuuraa isagoo aanay arkaynin. nebiguna waa cunaa sal ly slam. wuxuu leeyahay kama zuulin maalinkaasaan u jeclaaday raashinkaas dubbaagaasi ama bocorkaasi, maxaa yeelay nebiga cunadiisii uu jeclaa bay ka mid ahayd. walidaalika anasna waa jeclaaday raashinka radia allahu canhu wa ardaa. waxaa ka mid ah ziyaaraadkiisa mar uu u tegey citbaan ibni maalik radia allahu canhu. citbaan baa u yeertay, wuxuu ugu yeertay gurigiisa inuu meel uu ku tukado uu uga sameeyo oo isaga uu ku bilaabo tukashadaasi si uu meesha uu nebiga uu ku tukaday uu uga dhigto meel isna uu musallihiisa u noqdo. wuxuu ku yidhi citbaan rasuulka isagoo u ashtakoonaya yaa rasuul allah ankartu basarii, aragaygii baa inkirayo, yacni baryahani si fiican wax waa u arki la ahay, qowmkaygana imaan baan u ahay, waxaana inoo dhexeeya waadi ama tog. markii biyaha uu yimaadana togaasi biyo badan ayaa ku shubma
walidaalika marka waxaan ka baqaa inaan aadi kari waayo masaajidkaas oo aan tujin kari waayo gurigeygaan rabaa waqtiyada noocaas ee roobabka uu daaya inaan ku tukado ee kaalay meel iiga samey aan ku tukado nebigu wuxuu yidhi saafcal insha allah waan samayn doonaa markii berri la gaaray barqankii ayuu wuxuu soo kaxaystay abubakar iyo cumar iyo qaar saxaabadiisa ka mid a ayaa soo raacay markaasuu ku yidhi xageebaad jeceshahay inaan ku tukanno markaasuu u ishaaray naaxiya fi lbeyt qayb guriga ka mid ah meel daraf ah gogolla wuu u goglay nebiga calayhi salaatu wasalaam 2 ragco ayuu tukaday kadibna cutbaan nebiga ayuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah raashin baan samaynay inaad nala cunto wey nebiga waa ka yeelay waa fadhiistay raashinkiina wax waa ka cunay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wahaakada walaalayaal dadka uu u tegaya uu farax gelin jiray qalbigoodana wuxuu ku beeri jiray wax maxaliya farxad leh waxa ay doonayaan oo danahoodana waa u qaban jiray anas wuxuu tilmaamaya nebiga sal slam mid wuxuu ahaa inagu dhex jira wiil yar oo walaalkaya oo markaasi naaska ka guray oo 3 sano jir ah oo hadalkii bilaabay oo Abaa Cumayr la yiraahdo ayaa jiray buu yiri nabiga markuuna soo booqdana uu la kaftami jiray oo ka qosol siin jiray oo la qosli jiray ilmaha yarka ah maalmaha kamid markuu noo yimid ayuu wuxuu arkay ilmihii yaroo murugaysan oo si maxaa la yiraahdaa yani aan active u ahayn markaas wuxuu ku yiri hooyadii ya umma sulaym maali ara ibnaka Abaa Cumayr hazinan kha'ira an-nafs maxaa dhacay oo maanta aan ugu jeedaa ilmahaagii yaraa uu murugaysan yahay isla markaa uusan active u ahayn khaa'iran nafsiga waa ilmahan active ka ahayn nashaadka iyo firfircoonida aysan ka muuqanin markaas waxay tiri yaa rasuul allah sallallahu alayhi wasallam maata nughayru gorgor yar oo shimbir yar oo gorgorka u eg ayaa maanta ka dhintay uu ku ciyaari jiray shimbirkaas uu lahaa nabiga waa u yimid sallallahu alayhi wasallam ilmihi yaraa madaxa ayuu u salaaxay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuuna ku yiri yaa abaa cumayr ma facala an-nughayr yaa abaa cumayr ma facala an-nughayr abaa cumayr gorgor yarowgii muxuu sameeyey maxaa ku dhacay yani wuxuu la qaybsanayaa tacsidii ilmaha yar tacsiba u taalla murugaa u taalla murugtaasi ayuu la qaybsanayaa salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام مركو قريها ويماد سيدي قريقي سعد بن عبادة مركو يمد خبز زيت أي كعني مركو عنينا وأدعي دعينك وكدعي وحكم إذا أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أكتيني وحكو أفري كوي صونا ama cidii gaajaysaneedba raashinkiina waxaa cunay dad baa riyaalo insha Allah wanaagsan malaa'igna ha idin ku salido waa maxay ha idin naxariisato oo waxa way ha idin amaanto markuu Busr ibn Abi Busr uu soo booqdayna oo gurigiisa markuu ku soo dhawaaday zawjadiisii isagii baa ka hortagay Nabi sallallahu alayhi wasallam iyagoo marxabaynayaan oo soo dhaweynayaan kadibna gogol qatiifa baa loo goglay wuuna ku fadhiistay kadibna ninkii guriga lahaa oo Busr ahaa zawjadiisii wuxuu ku yiri keen raashinkii aad diyaarisay waxay la timid markaa xeero ama saxan ama weel uu ku jiro daqiiq yani wax daqiiq ah oo markaasi biyo iyo milix waa maxay lagu walaaqay oo lagu casiido looga dhigay markaas nabiga hortiisa la soo dhigay sallallahu alayhi wasallam wax buu ka cunay saxaabadii la socotayna wax waa ka cuneen hamba iyo haraadina waa soo hareen oo waa dhamaysan kari waayeen kadibna waa u duceeyay reerkii oo wuxuu ugu duceeyay Allahumma ighfir lahum warhamhum wabarik alayhim wawasi' alayhim fi arzaqihim ilaahu u dambi dhaaf oo u naxariiso oo barakee oo arsaaqdooda u waasici yani khayrkoodana badi جابر بن عبد الله رضي الله عنه أي جورجيس كوسا بوقدي مالي ما كميدا جابر حاس كيسو حكيري ما أنت الرسول كأيا إنه إيمانه صلى الله عليه وسلم أو بوقشة إنه إيمانه مالين كمركي تهي دحبرتن كذا وسط النهار الرسول كهدبين هلا وإحنا هويدي سنة وهكذا اللي عزومات هو شيء danta kale oo lagu qabanayna waa shay wahada inta badan saxaabadu waxay jeclaan jireen nabiga inay iska cazuumaan iyagoo aan waxdana kala hayn isna duca iyo khayr iyo ayuu uga tagi jiray marnaba waa maxay qofkii macruuf u sameeyay isna macruuf kale u sameyn jiray wuxuu ku yiri marka hala hadlin oo waxba ha weydiisan oo ha dhibin markaas wuxuu u gowracay waxar aad u cayilan ayuu gowracay ولا سكري يوسف عم بلوسو أقاسمي نبي هرتي صلى الله عليه وسلم مركز وحكير يا جابر كأنك قد علمت حبنا للحم وحد مدة إلى أن إنسان هلبك أوجعنا هاي كدب نوعنا النبي صلى الله عليه وسلم عدي الله سعتينا هلبك سي وحكعنن هل كدرسي بقى كجرة راشين كمركي لجوك هنا قفك فرح قلي والله راشين كما أبا هنين ما أنت وإن جهيسي لنكي سوى في عين وهكذا وحسن التعامل أي كم تهيم مركو دمعين وبحه جابر حاسكيسي وجري قد إني عيسى إسكو قبنا يسوه ayaa nabiga la hadashay waxay ku tiri yaa rasuul allah sallallahu alayhi wasallam iyadana qorshe u degan jaabirna maanta wala dardaarmay laakiin dumarku mararka qaarkood oo imtixaan waxa way dardaaranku ma qaataan tooda iyo qorshahooda ay ka wataan dhinac bay ku gaban tahay radiyallahu anha wa ardaha waxay ku tiri salli alayya wa ala zawji sallallahu alayka ya rasuul allah aniga iyo zawjkaygaba ilaahay noo weydii inuu inoo naxariisto oo noo ducee ilaahay adigana ha ku amaano oo ha ku barakeeye
nabiga wuxuu ku yidhi sal slam sala allahu calayki wacalaa zawjik alle adiga iyo zawjkaagaba ha idinku salliyo ha idin nabadgeliyo ha idin barakeeye ka dhiganta waa ducawe ayib ha idin tahiro ha idin ilaahay subxaana watacaala ha idin macaanidaas o dhan bay qaadanaysa jaabir markii uu nebiga baxay wuxuu ku yidhi sal slam zawjadiisa soo kaama reebin soo kuma dhihin nebiga ha la hadlin waxay tihi ma waxay kula ahayd inuu nebiga intuu maanta noo yimaada jaanis aan u helnayo gurigiinna soo dhex fadhiistay inuu iska bixi oo iska tegi isagoo aanan noo ducayn ani adigaba keligeyna duco kama dalbanine gurigoo dhan iyo qoyskoo dhan baan duco uga dalbay wahaakada saxaabadu ridwaanullahi calayhim sidaa ayay uga faa'iidaysan jireen nebiga sala allahu calayhi wasalam ayib waxaan ku khatimayaa nabiga calayhi الصalaaةu wasalaam wuxuu u yimid cabdilaahi bni caamir bni rabiica ayaa wuxuu leeyahay nebiga inoo yimid sal slama gurigeena anoo ilmo yaraa sabi ah waan baxayoo si aan u cayaaro hooyaday baa waxay igu tiri yaa cabdallaah cabdulaahiyow kaalay wax baan ku siinayaa hoo nebigu wuxuu igu yidhi bay tiri nebiga sal slam wuxuu yidhi oo maxaad doonaysaa inaad ilmaha yar siiso waxay tihi timir baan rabaa inaan siiyo intuusan bixin timir baan rabaa inaan siiyo nebiga wuxuu yidhi amaa inaki low lam tafcalii kutibat calayki kidba aw kadba haddaadan ka dhabayn lahayn oo aadan timir ugu talageli lahayn oo kaale wax baan ku siin oo maaweylis iyo beena hadday ka ahan leh been baa lagu qori lahaa ilaahay agtiisa cabdilaahi bni caamir bni rabiica arrinkaasi saamayn bay ku samaysay maxaa yeelay nebiga sal slam wuxuu barayay ummaddiisa khuluqa iyo dabeecadda qiimaha runta iyo sidqiga ayuu ku tababarayay ilmuhu marka in lagu tababaro guryaha lagu tababaro hooyooyinka ay laazimaan aabbayaasha ay laazimaan macallimiinta ay laazimaan hogaanka iyo ummadda dadka madaxda u ay runta ay laazimaan wax badan baa inoo kala socon laha walidaalika tacaamulka wanaagsan innaguna aan nafteenna kula dhaqan ilaahay maca allah caza wajalla iyo xuquuqdiisa aan kula dhaqanno xuquuqda khalaa'iqdana runta aan kula dhaqanno maxaa yeelay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wakunuu maca asaadiqiin kuwa runta sheego macooda naqda ilahay subxaana watacaala kuwa ha naga dhiga hada wallahu aclam wsala allahuma wasalama cala nabiyina muxamed abu hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay nebiga ayaan u soo galay markaasuu yidhi abu hurayra waxaan idhi buu yidhi haa yaa rasuula allah sal slam wuxuu isiiyey buu yidhi labadiisa kabood buu ii dhiibay oo wuxuu yidhi buu yidhi kabahayga qaado oo la tag ciddii aad ku aragto xaa'idkan ama derbiga ku teedan beertani qofkii aad ku aragto isagoo qirsan laa ilaaha ila allah qalbigana ka yaqiiniyey janno ugu bishaaree so uma jeedid wahaakada nabiga sal slam waxaa dhici jirtay sidoo kale inuu aado bi'ru ariis wuxuu ku yaalay waa beertii quba agteedii ku taalay weliba dhinaca garbi masjida quba dhinaca qorax u dhac ama galbeedka masaajidka quba ayay ku yaalay ceelka bi'ru ariis hadda waa la duugay waana ceelkii uu ku dhacay faraantigii nebiga sal slam oo abubakar iyo cumar ba iska dhexleen ilaa cusmaan wakhtigiisii cusmaan oo ceelkaa tegey buu uga dhex dhacay biyihii baa laga guray waa la raadiyey faraantigii waana la heli kari waayey waana ilaahay subxaana watacaala xikma uu la doonay